ياغون أدون هاي نمانكي أبوري عادنا بحول قلي ياغون أدون هاي نمانكي أبوري Soomaaliyeed oo dhan dadkeena mee joogaanba kacaankii labaad ee dalkeena ka dhacay waxa madax u ahaa Maxamed Cabdulla Xasan Sayid Maxamed Cabdulla Xasan wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay ee gaalada la dagaalamay naftiis ugu roo ahaa oo inuu Soomaali xornimo u soo cesho ayuu doonay ujeedadiisu waxay ahayd gobonimo doon meeriska dhulku wuxuu sameeyaa laba wareeg mid uu ku sameeyo orbidka yaa kala arday kalantayna doonayna marka adiga sistaa أما كاجي يا أرجع حبوا معاي